السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة الجنرال كان منير مرسكو حرد صاحبي على سود هذا وصاحبك منير وحرجينا إن أنا وتقابتان وتعافمات قبتان الحمد لله أنا سيدك لو عافمات قوا أنت دبعت هذا علاج كاست إلها كقاضو أنت إلهي نمعين كسين إلها أزياديو إلهي كشكرية إلهي كحمدية مرة وقوم هاد عليا نمعين كهستان وحياة إذن كما قلنا إلهي وديستا كنا دلقاتا أحبابي waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo muuqaal cusub ama aan u arkay mowduuc aan u arkay inuu muhiim yahay waliba xilligan hadda la joogo mar walbana muhiim waay laakiin hadda waxaan isdhahay muuqaalkan bal hadda ahbaabtaada iyo saaxiibadaada ku xiran channelka Munir Mercy ugu waran oo u sheeg ku faa'iideey waana wada faa'iideysan doonaa insha Allah waxaan halkan u joognaba waxa waay inaan kala faa'iideysano oo wixii muhiim ah isdhaafsano intaan hore muuqaalka iyo mowduuca aan hore u gelin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saartaan maxaa yeelay muuqaalka mar walba like la saaro ama like soo badato channelku waxay ka caawinaysaa inuu dad badan sii arko hore intii aan u soo galno maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo duco haddii aad akhrisato Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax walba oo markaas loo aad u akhrisato Ilaahay kugu aqbalayo sidoo kale culeys walba iyo dhibaato walbana Ilaahay kaaga feedayo ducadaas ayaan rabaa inaan ka hadlo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuuna amray inaan caabudno sidoo kale inaan Ilaahay amarkiisa qaadano rasuulkiisa amarkiisa qaadano inaan mar walba maxallaha qisooyinkii rasuulada ka horeeyay xataa Nabi Muhammad sallam aan yani raacno oon yani ka dhigano wax darsi iyo talo iyo wax wanaagsan oo anaga ku dayanayno Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka quraankiisa markaan fiirino waxa ku jiraan qisooyin cajiib ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noogu soo warmay ummadihii hore nabiyaashii hore dadkii saalixiintii hore iyo waxyaabo badan oo kale oo markaas nolosha iyo maxaa dunidan iyo koonkan ka waramayo ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ugu warmay maanta marka ducada aan rabo inaan ka hadlo ducadaas oo ah marka hadii aad akhrisato ama qofka muslimka uu akhristo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii uu markaas Ilaahay ugu baryo Ilaahay ugu ajiibayo sidoo kale wixii markaas culeys haystan Ilaahay kaga feedayo waa marka duco oo caam ah oo sidoo kale caanna ah oo cajiibna ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sheegayna baray qisooyin badan oo quraankan ku jiro ambiyada qaar ku dhacday Ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu soo warmay qisooyin qaar oo noloshan hadda xataa casriga hadda aan noolnahay dadkii akhristay ee muslimiinta ahaa ay noo soo gudbiyeen ama noo sheegeen inay yani cajiib la noqotay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hore ducadooda ka aqbalay culeyskii iyo markaas wixii ay u akhristeen markaas Ilaahay uu ka feeday ducadaas ayaan rabaa inaan maanta insha Allah aan ka hadalno ducada hadii aan sheegno Nabi Alayhi Salaam ayaa maalin asoo asxaabtiisa la joogo wuxuu u sheegay dacwatu dhunnun oo markaas u dhiganto yani dhunnun waxa laga wadaa qofka dhilxuut oo kala laga wadaa يعني نبي الله يونس عليه السلام ayaa laga wadaa dhunnun wa dhunnun idhaba muqadiman quraanka uu leeyahay marka nabi Allah Yunus maadaama uu xuutkaas ama Soomaalidu waxay u taqaan waliba raxmarkaana nabiriga oo calooshiisa galay oo muddo ku jiray saas darteed marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu magac daray dhunnun marka nabi alayhi salaam asoo asxaabtiisa ugu sheekeenayo dacwatu dhunnun wuxuu yiri fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qat إلا استجاب الله له يعني سو marka nabi Allah Yunus ducadiisa ka sheekeena asxaabtiisa ugu sheekeena wuxuu yiri ducadan fa innahu lam yad'u biha rajul muslim qof muslima kuma duceysanin qof gabar ma noqon kartaa wiil noqon kara illa istajaba Allah la illa Ilaahay uu ka aqbalaa ducada marka waa duco uu nabi sallallahu alayhi wasallam noo sheegay in hadii qofka muslimka uu akhristo ama gabadha muslimada ay akhrisato in Ilaahay marka wixii uu akhrisatay Ilaahay uu aqbalayo wadannuni idhaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ducadaas ay ku duceystay marka uu ducadaas duceysanayeen waxay aad waa mar uu markaas ku jiray nibiri ama xuut calooshiisa mar uu ku jiray ayuu ducadaas ku duceystay kadibna Ilaahay fastajabna la Ilaahay isla markuu ajiibay waa laga soo saaray nibiriga calooshiisa oo ku jiray kadibna ummadeena qoomkiisa ay ugu laabtay marka qisada hadii aan wax yar taabto Nabi Allah Yunus qoomkii loo diray ayuu dacwadii u tagay dacwadii markuu u waday qoomkiisa oo diinta Ilaahay in Ilaahay ay caabudaan wixii markuu ugu yeeray way ka diideen ama way yani way dhageysan waayeen oo way soo raaci waayeen
kadibna wuu carooday nabiyullaahi Yunus. marka caradaas ma aha inuu yani ka xun yahay ayaga ilaahay macna saas oo kale ma aha. Waxaa laga wadaa ayaga ilaahay dartiisa ayuu ugu carooday maadaama aysan yani ilaahay kii uu intaas sano ugu yeeray aysan aqbalaynin oo dacwadiisa yani ay dhagaha ka fariisteen. marka wuu iska baxay, doonuu fuulay. qisadu waa dheer tahay. doontii waxbaa dhacay, baduu isku tuuray, baduu ku dhacay, nibiri calooshiisa u galay. nibirigiya maalmo uu yani calooshiisa ku jiray, haddana ma ogtahay waa mugdi calooshiisa, waa cunto male, wax male, keligiisu meesha ku ahaa. markuu caloosha nibiri uu ku jiray ayuu ku duceysan jiray ducadan oo hadda aan ka hadlayno videogan ama muuqaalkan aan uga hadlayno. ducada marka wuxuu ku duceysanaya, ducada uu ku duceysanaya waxay ahayd laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin. ducadaas ayuu ku duceystay, ilaahayna wuu ka ajiibay oo yani waa ilaahay wuu kasoo badbaadiyey. kadib nibirigii meel xayab uu imaaday, wuu soo tufay, kadib qoomkiisu kusoo laabtay, dacwadii uu meesha kasii waday. marka ducada marka waxay 3 qeyb waaye ay ka kooban tahay markaan u fiirsano. laa ilaaha illaa anta iyo subxaanaka iyo innii kuntu min adh-dhaalimiin. 3daas qeyb ayay ducadu ka kooban tahay. midda hore waxa waaye tawxiidka ilaahay waaye, waa laa ilaaha illaa anta, ilaahay ma jiro ilaa adiga mooye ilaah, yani ilaahay xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta, adiga mooye allo waaye. subxaanaka nasahnaantaada waa tasbiix waa ayadana, ilaahay ba xumaanta iyo qurunka iyo wax dhan ka nasahaysaa. inta u dambeysana waa innii aniga kuntu waxaan ka mid ahaaday min adh-dhaalimiina, ama waxaan ka mid ahay min adh-dhaalimiina, kuwa dhaalimiinta. marka intaas dambana waa shalay iyo istighfaar iyo tawbo oo kale waay, oo ilaahay inaa u laabanayso oo kale, marka inaa waxba ahayn istusaysid ilaahay subxaana wa tacaala. marka ducadaas ayuu ku duceystay nabiyullaahi Yunus. nabi maxamed calayhi salaam xadiidka hadda aan idin sheegay Sacd ibn Abi Waqaas asagana sidoo kale wuu noo sheegay in uu nabiyullaahi Yunus uu ku duceystay ducadaas. oo ducada marka waxaa la lahaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku magacaabay dacwatu dhinnuun, dacwadii nabiyullaahi Yunus uu ku duceystay. nabigana wuxuu noo sheegay qof ma ku duceysto oo muslim ah shay uu u baahan yahay markaas illa istajaaba Allahu la, illa ilaahay wuu aqbalaa wixii markaas uu ku duceystay. marka haddii ducadan aan ku duceysano oo marka wixii murugna haysto aan ugu duceysano, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna aqbalaa, wuu naga ajiibaa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ogaada asaa mar walba baahidaada iyo waxa u baahantaa og. sidoo kale mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ducadan u akhrisato, ilaahay wuu kaaga feedaa. marka insha Allah ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha qaar markaa fiirisid wuxuu leeyahay udcuunii astajib lakum, barya aan idin ajiibe. wax weynba ma aha haddii muslim ilaahay kaa dhigay oo nimco ilaahay ku siiyey, noloshaadii wax walba ilaahay ka faala qaaday, waxa yarka ee kaa maqan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiiso, udcuunii astajib lakum, waa uu ku ajiibaya. weliba ducadan si gaara haddii aad murugaysan tahay ama dhibaato ku haysato ama muraad kale aad leedahay oo wax in ilaahay markaas ganacsi ama howl kale ama awlaad iyo ama guur ama waxa aad rabtid, ducadana ku duceysanaysaa. waxaa hubaal ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka ajiibayo oo waxaaga markaas ilaahay kuu furay. haddii dhibaato wax ku haysatane iyo culeys ama walwal ama murugo ama cabsi ama deen lagu leeyahay, waxyaabo saas oo kale ama imtixaan kugu soo socdo, ilaahay waxaas dhan kaaga feedaa. oo markaas ilaahay maxaa subxaanahu wa tacaala ducada akhrisatay sababteed ilaahay wax walba kuu fududeena. marka ducadan in la yareysta maaha. hal qisan kusoo gabagabeynayaa. qisadan qof akhristay ducadan ayay ku dhacday, anay igu dhacday. walow qisooyin badan aan hayo oo ducada qof akhristay ilaa 3 qiso oo kale haya, laakiin waxaan idin sheegaa gabar oo foolanaysay oo maxaa la lahaa umule waxay ahayd macna xaamile ahayd 9 bilood uur siday. marka dhalmadii ku yara adkaatay, ayadan isheeda goday ku jirtay oo yani aad u dhig baxday. Soomaaliya waa ogtihiin badanaa dumarka isma daryeelaan, ayadoo uur leh oo 9 bilood ama 8 bilood 7 bilood oo laba naf isku sida ay haddana macnaha hawshii guriga qabanaya, dharkii dhaqay, wax walba sameynay sida dumarka Soomaaliyeed ogtihiin. marka dib intaas oo culeys isku haysay sidaan qiyaasayay, hooyadan marka aad ay u ildarneed oo isheeda goday ku jiray. markii dhalmadii la soo gaaray fooshiya dhibtay, waxaa la go'aansaday in lagu qalo. marka ayadana qaliinka way diidaneed, dhiigeedan hoos u ahaa HB-geeda, yani macnaha tabardari ama nafaqa dari aad u weyn ka muuqatay. in lagu qalamay si kale oo lagu badbaadin karo ma jirin. marka quraanka lagu akhrinayay, anna marka dadkii quraanka ku akhrinayaan ku jiray, gabadhana si gooni ah u aqaanay. waa u tagay waxaan dhahay adkaartan ama ducadan ku celceli, insha Allah quraankan waa ducada isku darso biidhnillah wax walba fududaanaya.
markaan kasoo dhaqaaqay oo xaafadda aan imid meesha marka gurigeeda ahayd markaan xaafadda imid marka gabadhii waaba dhashay la dhahay ducada markaan ku laabtay oo salaan ahaan ugu laabtay ilaahay ku furtay maasha Allah wiilaa dhashay waa ugu hambaliyay alxamdulillah dhahay waxay tiri marka ay tagtay ilaa aan ka foolanayay anoo isbitaalka la geenin ducadana ku celcelinaya dhahay la ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin marka waxay dhahday ugu yaraan waxaan ku celceliyay dhahay 200 oo jeer aan akhriyay kadib waa fooshay waa lagu soo kala orday ilmihiin waa dhasheen waa qofkii isbitaal la rabay oo intaas yani si caadi uma dhali karta la dhahay oo qarashkeeda xataa isbitaalka la bixiyay wixii dhan marka ducada ay akhrisatay ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu fududeeyay marka ducadan waa duco cajiib ah insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideystaan oo akhrisataan marka culays jiro marka murugaysan tahay markii nolosha ay kula yara noqoto inay culays tahay ama alla maxaa nolosha dhib badana imtixaan wax saas oo kale marka dareento ducadan akhriso ku celceli waa 3 qayb ka kooban tahay marna tawxiid waay mar tasbiix waay marna waxa waaye waa istighfar Ilaahay ku weydiisanaysa oo dambigaaga iyo waxa tahay akhiraysa marka insha Allah ducadan hadii aad akhrisaan oo ku celcelisaan insha Allah Ilaahay armiin uu idin fududeynaya qisooyinku way badan yihiin laakiin halkaan aan ku soo gogoynaya muuqaalka insha Allah waa ku maasantiin daawashada muuqaalkan waxaan idin leeyahay soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صلوا على